markaabuu nabigu calayhi salaatu wasalaam majliskiisii isagoo maalin fadhiya ayay nimankii muhaajiriintii maka ka soo hijrooday ayaa sare kacoo nabigay ku yidhaahdeen nabi allow magaalada maka annaku aan ka imannayn ka soo baxnay maa uu zamzam baan ku haysanno iib ma ahayn halkan biyuhu waa iib magaalada madiina ceelashana niman yahuuda inta badan iska haysta lacagaan ku iibsanana ma haysanno marka ninkii ceelka bi'ru ruuma lahaa ayuu nebigu u tago wuxuu ku yidhi asxaabatayda muhaajiriintayda biyaha u fasaxa ka cabbaane markaasuu u fasixi maayo oo anu ceelkaa yar baan leehayo biyaha yar baan iibiyaayo reerkayga ayaan ku biiliyaa markaabuu nebigu ku yidhi bicniihi bicaynin fi ljanna il jannada ku taalla ceelkaagaa ku bedilo ku iibso markaasuu yidhi may ceelkaygaa yar iska iibin maayo iska kaydaa buu ka yidhi cuthmaan binu cafaan radia allaahu canhu oo daki ahaa oo caqli badnaa oo inshiisu meel dheer wax ka arkaayey oo basiiro ilaahay uu siiyey ayaa hadalkii nebiga qalbigiisa ku dhibcay bicniihi bicayni iljanna il jannada ku taalla ceelka igaga iibso markaabuu ninkii iska diiday ninkii ceelka lahaa cuthmaan baa ninkii u tagoo yidhi ceelkaaga haddii lagaa yidhahda lacag ku iibi ma iibin lahayd haa waan iibin lahaa way gorgortameen markaa waxay ku heshiyeen 30,000 oo dirham cuthmaan lacagtiibuu soo qaado uu dhigay ceelka furihiisa igu soo wareeji buu ka yidhi uu ka soo qaatay rasuulkii calayhi salaatu wasalaam buu u keeno wuxuu ku yidhi yaa rasuul allah ceelkii bi'ru rooma haddii aan keeno ishii jannada ku taallee ninkaa loo ballan qaado iska diiday aniga ma lai ballan qaadayaa markaabuu nebigu yidhi haa markaabuu yidhi ceelka furihiisii waa kan asxaabtaadana waa waqaf buu u yahay ha dhaansadaan buu yidhi ceelka haddooto biyihiisa waa waqaf hal isticmaala buu rasuul allah yidhi markaabuu nebigu farxay indhaha ayuu nebigu markaa kor u qaado wuxuu yidhi cusmaan ilaahuw raalli baan ka noqdee raalli ka noqo cusmaan maanta laga bilaabaa camal dambe hadduunan samaynba intaabuu jannada ku galay buu rasuulku yidhi bicniihi bicayni iljanna indheergarata dadkaas ahaa soo maha ya mise siyaasi salaadna aan tukanayn baa lagu odhan indheergarata weeyaanoo 50 sanee soo socda isbeddelka geeska afrika ka faalloodaay dhegaysta idaacad intoo la soo fadhiisiiyo yaa allah caqliga aakhirada ku tusini waaya caqli maaha nolosha dambe caqliga kuu jeedin waaya caqli maaha araggu haddaad aakhirada ku arki weydo ood ku xisaabtami weydo arag saxa maaha janno hadday maqlaan asxaabta rasuulku waxay hayaan halkaaba iska dhigayeen marka jannadaasaan is hordhigaynaa markaan soomayno salaadayno sadaqada bixinayno zakada bixinayno waalidka u samafalayno janno nin baa nebiga u yimid oo yidhi jihaad baan rabaa oo inaad jihaad baxdaad u timid haa jannaad doonaysa haa jannaan doonayaa nebi allah wax kale ma doonayo labadaadii waalid ma nool yihiin may hooyaan nool ma iyadoo kaa raalliyaa timiday mise iyadoo safarkaaga aan raalli ka ahayn maya iyadoo ooyeysaan ka imiday markaa buu nebigu uhi sow janno uma socotid haa hooyadaa ku noqo lugteeda qabso halkaa baad jannada ka geli doontaa adigu ye ilzim rijlayha uma aljanna buu nebigu uhi uma aljanna lugteeda qabso jannada halkaa baad ka geli daacadda ilaahay markaad gudanayso waxaad is hordhigaysaa waa janno macsi markay naftiiyo shaydaanku kuugu yeedhaan ee shaydaanka iyo naftu ay ku yidhahdaan ilaahay caas oo dembiga samee oo waxaa ku dhac markay naftiiyo shaydaanku ku yidhaahdiin waa inaad is hordhigtaa ilaahay cadhadiisa is hordhig ina batsha rabbika la shadiid ina rabbaka labil mirsad ilaahay ku xisaabtin cadhadiisa ka cabsiya naftaada markaas marka labadaasaa la doonaya ilaahay inaan ku caabudno tamacan khawfan wa tamaca cabsi iyo rajo cabsida goormaa la rabaa waa intaad caafimaadka haysid eed nolosha haysid ee dhallinyarada aad tahay eed amniga haysatid ilaahay cabsi ku caabud maalintaad heer xanuunsatidna ama xaalad adag ay kugu timaaddo ilaahay raxmaddiisa raje markaas oo ha quusan oo waxaad tidhaahdaa naftaada waxaad ku tidhaahdaa rabbigay waa naxariis badane waa deeqsi badane waa kariim weeyaan ilaahay waa kariim kaad la shaqaynaysa waa kariim sidii ninkii
xajka u socday mar alle markuu ihraamkii u xidhay ayuu maqlay ayuu yidhi labayk allaahuma labayk markaa dushiisaa laga leeyahay laa labayka walaa sacdayk xajka aad u socoto lagaama aqbalin safarkaa aad u xamaan qaadatayna ilaahay kaa aqbali maayo iska joog hadal baa dusha kale dhawaaq mid isaga gadaashiisa joogaa hadalkii la maqashiiyey kii baa ku yidhi yaa sheekh maxaad ka xajin adigu labayk allaahuma labayk markaad tirahdaba jawaabta maad maqlayn markaa maad maqashay haa waan maqlay haddaad maqashay haa haddaan maqlay wuxuu yidhi 27 sano ayaan ilaahay gurigiisa u soo qasday mar hali markaan xajka aanu ihraamka soo xidho ee talbiyada soo bilaababa laa labayka walaa sacdayk baa leeyahay oo waxa dushayda laga leeyahay xajkaaga cimradaada sacigaaga cibaadada aad u socoto ilaahay ka aqbali maayo baa leeyahay ee iska joog baa leeyahay haddaan gurigiisa ka joogo oo socodka aan xaggiisa u dhaqaaqay aan ka joogo xaggee kalo oon tagaa bali sheeg buuri adaan tala kaa qaadana bali sheeg buu ka yidhi may jirtaa meel kale wuxuu yidhi ama hal lay aqbalo ama yaan lay aqbalin anuu ilaahay baan u socdaa xaggiisa buuri meel kale uma socdo ka quusan maayo ilaahay raxmaddiisa waa kariim waa raxiim waa raxmaan waa xaliim waa sataar ceebteedno dhan buu qarinaya maanta dulqaad badane war ma cadaaladda ilaahay baan ku joogna adduunyada baa la yidhi satriga iyo dulqaadka ilaahay baan ku joognaa satr asturkiisa ilaahay baan na asturaya ilaahay baa noo dulqaadanaya laakiin haddii cadaalad la eegi lahaa acmaasha jidhkeenna maanta ka soo fulaysa iyo cisyaanka aan ilaahay caasinayno iyo sida macaasida waddooyinkeenna maqaaxiyaheenna guryaheenna ilaahay loogu caasinayo daqiiqad adduunka inaan ku noolaano xaq uma yeelaneen maanta toddobiyo 20 sanaan maqlayaa buu yidhi oo laygu jawaabaya oo layleeyahay ilaahay xajkaaga kaa aqbali maayo iska joog demaan joogaa ka joogi maayo waan socdaa buhi waryaa u yimiday dawaafkii buu bilaabay sacyigii markuu dhammeeyey ayaa dushiisa laga dhawaaqoo la yidhi labayka wa sacdayk waan ku aqbalnay waan kaa ajiibnay 27kii hore ee xajidayna ilaahay waa kaa aqbalay baa lagu yidhi kii baa la maqashiiyey marka hore maqlaayay markaa buu yidhi sheekh waa lagu aqbalay wuxuu yidhi albaabkiisa mahayna albaab kaloo garaacaynaa ma jirta buu ka yidhi ma quusanayna annagu ilaahay baan haysanaa marka ilaahay raxmaddiisa ka quusan mayno dadkana ka quusin mayno bal ummadda waan tarqiibinaynaa waan u naxariisanaynaa dacwadda ayaan ugu yeedhaynaa dacwadda markaan ummadda ugu yeedhaynana waan u dhibrinaynaa bucithtum muyasiriina walam tubcathuu mucasiriin xadiidkaas siduu ku yimiday nin caraabiya ayaa masaajidka nebiga dhexdiisa cawradiisii intuu la soo baxay ayuu masjidka nebiga dhexdiisa ku kaadiyey saxaabadu markaasay ku yaaceen markaa buu nebigu calayhi salaatu wasalaam waar ka joogsada markaa buu nebigu saxaabadii ka joojiyey markaa buu nebigu ku yidhi waar ka joogsada kaadida ha ku goynine ka joogsada halkuu ku kaadiyeyna biyo ka badan ku shuba buu yidhi isagii buu nebigu markaa u yeedhay kaalay adigu markaasuu nebigu fadhiiso ka yidhi uu fadhiisiyey masaajidkan ilaahay baa leh waa meel ilaahay lagu caabudo salaadaa lagu tukadaa qur-aankaa lagu akhristaa tasbiix iyo taxmiid iyo takbiir baa loogu talagale ee maaragtaane wax kale masjidka looguma talagelin isagii baa ka sheekeeyoo yidhi wallaahi ima dhibsan oo ima dilin oo ima aflagaadayn macallin isaga lamida hore uma arkin dib dambana u arki maayo wuhi macallin isaga lamida ilaahow aniga iyo maxamed noo naxariiso cid kale ha noola naxariisan buu ka yidhi saxaabadiisii buu nebigu ku yidhi halkuu ku kaadiyey biyo ka badan ku shuba innamaa bucithtum muyasiriin bucithtum waxaa adduunka laynii keenay oo laynii soo saaray inaad dadka xaqa u dhibrisaane inaad ummadda xaqa ku adkaysaan adduunka layniima keenin buu rasuulku yidhi bictha walaqad bacahnaa fi kulli qaryatin nadiira wamaa kunna mucadibiina xataa nabcatha rasuula
بعثة كلمة البعثة قرآن يقول الله والفاظ إلهي سجارة مركو وتلمامة النبي يدا إريدا النبي يدا ما لو أدك سجري اجتبى اصطفى بعثة وكلمات النبي يدا خاص كوها لكن النبي محمد عليه الصلاة والسلام صحابتي سيبوا كليهي إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين إن كلمة هنا أدوك اللي ما سو صارين هدين اللي سو صارينا رب العزة وحوني سو صاري إن هذا مدى حق أودي برسام اللي ما سو صارين إن هذا مدى مرقد حق أوجد بين إنسان أتقوات كيسان ربعي بن عامر صحابي جليل كاها رستم مركو تجينا وكي كوير رستم الله ابتعثنا إليكم أنك إلهي بنوكي سو صاري بوكي ورقفك مسلم كا ولا ليال مسلم وين فهمت إلهي بكو سو صاري إلهي بكو دورتي ومع إلهي كو دورتي دين تا إسلام كا إناد كو دغانتو أدبرتو أدكشقيسو ودين كو نولاتو ودين كو نماتو أيا أدوية اللغو كيني هدف كاغونا أون نغضو إناد جنهش أنصار مرقو النبي يقول لم يبايعون يا أنصار وحو النبي يقول أنصار أي كوة بلمين بيعة العقبة مركي دعيسي يا رسول الله أنا كو قادنا النبي كو يرادين مدينة المنورة وان كل تجينا سيدا نفط يدا عدو قانو قد دفاعنو يعني المها يقع عدو قانو قد دفاعنو الريرها يقع عدو قانو قد دفاعنو أيان أديقنا عدو قد دفاعينا وحانا أغنهي هدان مقالة مدينة كل تجنو عالم كود أندتها كنول أيا دقال لغسو قادي دونا دفاعاga inaan ku dhammaanana diyaar baan u nahay dhaqaalaha yageena inaan adiga kugu bixino diyaar baan u nahay ma laga yaaba nabi allah maalinta ilaahay diintaada uu muujiyo ee guushaadii ay daahirto ma laga yaaba inaad naga soo noqoto oo maka ku soo noqoto markaa buu nabigu waxa ka yaabina buu yiri halkaad ku noolaataana waa ku noolaan buu nabigu yiri halkaad ku dhimataana waa ku dhiman halka dhiigiinu ku daatana waa ku daadan dhigaygu rasuulku yiri yalla fiirs waa bay'a erayadii ansaari nabiga dhaxmaray sirada ku taala الدم الهدم با nabigu halka dhiigiinu uu ku daato dhiigayguna ku daadan halka qabuurihiinu ay noqdaan buu qabrigayga noqon rasuulku yiri inaan makka ku soo noqda oo tolkay niga soo raaca ha soo dhiganin nabigu ansaaray waa ballan hadaad aniga maanta i qaadataan oo sida naftiina iyo ubadkiina iyo dumarkiina cadowga aad uga difaacaysaan hadaad cadowga iiga difaacdaan anna waxaan nii ballan qaadayaa halkaad ku noolaataanna waan ku noolaan halka laynagu aasana waa laygu aasi halka dhiigiinu ku daatana dhiigaygu waa ku daadan waana ballan buu nebigu yidhi wallaahi buu nebigu yidhi waxaan nii sheegayaa dadka adduunyada ku nool hadday dhinacay maraan aansaarna xagga ay marto oo la yidhaahda kala dooro halka aansaari ay martaan mari buu rasuulku yidhi waxay yidhahdeen waa hagaag laakiin maxaad noo ballan qaaday oo kale noo sheeg waad guulaysanaysaa ilaahay baa guusha ku siin doona anaguna difaacaaga inaan ku dhammaano diyaar baan u nahe maxaad noo ballan qaadaysaa noo sheeg wuxuu yidhi jannaan nii ballan qaadi janna maxaa ka weyn bal sheega ma odhan madax baan niga dhigayaa dhaqaalaan ini siinayaa talada dabaday ininkaa nii dhiibaya ma odhan waxau nebigu yidhi waxaas waa adduunyo ka kaalay waxau nebigu u ballan qaaday inay janno wada heli doonaan ficlan nebigu ansaar uu u duceeyey sal alla alay wasalam gargaarka ay nebiga u gargaareen ee ilaahay rasuulkiisa u hiiliyeen ee diinta u gargaareen ayaa loogu magac daray al ansaar kuwii ilaahay nebiga u gargaaray baa loogu magac daray marka inakuna inaan diinteena u gargaarna laynaga rabaa maanta oo aanan odhan xilka diinta culammada unbaa ka mas-uula macallimiinta unbaa ka mas-uula jamaacadda khaasa unbaa ka mas-uula may qof kastoo muslim waa shahaadanaya diinta xil baa ka saaran inaad adiguna diintan islaamka aad ku dhaqantaa ood barataa waa waajib ku saaran oo ilaahay baa kugu addoonsaday inaad diintan shaqadeeda aad ka qayb qaadataa oo maalkaaga wakhtigaaga dhaqaalahaaga caqligaaga cilmigaaga wixii ilaahay salaaxiyad ku geliyey inaad diinta islaamka aad wax ka gashataa iyadana qiyaamaha waa lagu weydiin doonaayo ogow falanas'alanna aladiina ursila ilayhim walanas'alanna almursaliin baa ilaahay yidhi innahu ladikrun laka
وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. إن شاء الله هذا إن الدين تكشغنا ودنيود إن شاء الله سفي عنه هذا ده هذا نبدأ الصلاة الله وياه توحيدك لما ضل لك شيء ده إن شاء الله فراغ مركان هيسنو مددا أفرت بلود يا لوضع بلود يا أفرت كعيشة بيش فصحات هاي ووسائل الدعوة سيدا ما التعليم تبقى وسائل ولا ده هاي وسائل التعليم ومحي ومدارسته منهج كمدارس ووسائل وياه منهج كان علمي قال نقول دقنا يا متون علم المتون علم المطولات مركز بلغلي ووسائل العلم وسائل الدعوة إمك آلات كان إمك نقدو بيسان ووسائل الدعوة وأنا أقول لها يمديدنين لكن جماعة هنا بحضو أو قرية جماعة كب بحضو أو قرية دتك أي براروجيان أو مقايد دتك أي وتجان أو دتك صلاة الله وياه أو تاريخ صلاة قعدت الله سوقته ووسائل الدعوة بل تاسع أصل كيه ولبن نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام آلات كان ما أنت نقول أنا سنين دعوة أوكاشنا إنه هذه آلات كان دعوة كف ديسو نبي محمد بالسين لها لكن نظام كان نبي محمد إلهي أوسيي والنظام كأقول نتيجة إن مركب الدين في عالم كنا قاعد وأنا نظام كي والنظام كوقف إنه الدالة إنه ها إن أدوق الداشي أديك نقالة كابحو مال كابحو وقت كابحو ديك كابحو دعان كابحو نقالة كابحو ودسيكتي هر واحد جعش هاي مركز الدين تقيمه هيجنا أتقرن ذاتك كلام الدين أتقيمه هو شيء كريم هل قصان نقصه قابل نبا وذي إنك الصوت ضمعين وجربوا امتحان وكقاضوا يقول أبو ده لباتن جربات هاي لباتن كاسنو وحنا دعونا إنسان إلهي أنا قوم بيسو ديبو بيل كي نسينا يه ما أنت حبا ما هيو غير كي بهدي يريد حبا ما هيانه بل وحي ريكين بوكيني ما أنت أرض يسو حوك سو حيكين كاير وإنه هو ولي الشقة ما أركن الدنيا كما شقين هو يدي بوتوغو هو يلعق بان رباية يسيبو ليه مثلا $10 وهو معان ويسوس أرتوي سيسي أبيه بوي مدوير سو شقيه بوسكدي أبا واكن $10 هو ينا سو دعاء وكقاضي وذاك مركا غرغره دبا hortiisa dab ka baxaya bulbul markaas uu qaado isagoo arkay uu ku rido $10 bul kiyaraabo eego wax isbedel yar kiyara kuma iman hadana maalin dambe uu bal maantana abaan ku sugaya duca qabatahay oo yadii buu tago oo bal wax yarsiyo maxay $5 uu keeno aabbawaad ma sha Allah fariid waaye isagoo arkay dabkii hadana ku tuuray hadana maalin saddexaad islaantii baa tiri war lacagta bariyahan aad iga gurtaa halkeed geysaa wuxuu aabba igu yiri bal ii shaqo tago waxii keeno deeyo waxa shaqo ma garanay adigoo ma ka qaadaa markaabada dad muxuu ka dhigaa odaygu lacagta wallahi deen wax ku falayaaban moodaye gargaro hortiisa dab ka baxyo buu ku tuuraa marka abeeter war lacag la gubaanigu ma haye orada aabaha u shaqo tago hay wareerinayga tag waryaa المهم قال حابو غوريس راعي حابو ده لو سو غورا متى عبام سو راحو وسو غوري او كاني لعقتي بو سو هلي او كاني لعقتي بو في قيبه ليدو ابو markaabo dhinacna uu ka haya lacagta moogta odaygana uu eegay war maxaa jiray wuu maanto aaba lacagtii hore way ka duwan tahay maanta wuu oo kolkaana dabka ka daaday aabo oo maxaa uga daayay tii hore wasooni ku gurayay ma tii hore hooyaan ka soo qaadiyay tan laakiin maanta ana soo shaqaystay baad fahamteen baan u malay diin shayga qiimihiisa waxaad garan markuu dhiig iyo dheecaan iyo waqti uu ka galo hadaad waxba gelin ma garanaysid qiimihiisa marka diinteena macaan ilaahayna siiyay inaan shaqadeeda tababarkeega u baxno oo habeenka jimcaha markaska imano oo masaajideena ma sha Allah dhalinyar badan oo khayr badan ba ka dadaalayay macallimiin iyo culimo badan in dadaalka diinada inaguna qaybteena ka qaadano wadaniyooda insha Allah dambigeena Allah dhaaf dambiga waalidiinteena Allah
bushaaro 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 haddii safar loo geli jiray barashada qur-aanka hadda waxaad ku baranaysaa qur-aanka iyo culumta shareecada adiga oo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo dugsiga online-ka ah ee barashada qur-aanka kariimka iyo shareecada islaamka duruusta uu sida taxanaha u dhigo waxaa ka mid ah barashada qur-aanka kariimka ah iyo higaada culumta shareecada islaamka tarbiyada awlaada iyo luqadda carabiga haddaba isqoristu waa ay socotaa hadan hore ogaad wixii faahfaahina kala xidhiid nambarada shaashada kaaga muuqda hamoodaan dugsiga online-ka ee barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada ee daarul hijra